ummadii hore la halaagay ummadahaas waxa lagu halaagay wax kale ma ahayn ilaahay wuxuu leeyahay maxaa looga heli waayay dad aqli leh oo xumaatada fasaadka la sameynaayo dadka ka celiya maxaa looga waayay waxay u halaagsameen wax kale ma aha waxa uu la waayay dad aqli leh oo xumaatada dadka celiya falawla kaana min alqurun min qablikum ulu baqiyatin yanhawna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم بل انت آياتها أنا وحير كرتاقنا آيات هور إلهي وحوليه محا أمدها اللوغة واي أمد عقل له أو فساد كعليس ولغة واي سوما فساد كيسكر راعين فساد نوات قانانو إنك في صوماليا إنه حالي هذا فساد أنت أصلا سنون بفساد واي ويسوق بين فساد وحيدين ومسق ماسق ومحاتها مسق ماسق عن محوية عربي الفساد بل هذا فساد كمحوية فساد وحالي هذا هذه مثلا قدرتها موسكو كلا يودن كينادو قبح قار هالليسن أمحن موسكا كمدة كوف يولو دحدرو أو بخارك أما مغسنك لإسكولا حرو موسكي فيوبا موسكي حما ayaa xumaynaya oo wuxuu ka dhigaa waxaan u naqaano bolol wuu xumaaday wuu fasaaday fasaadku marka waa shayga sidii uu ahaa ee isticmaalka uu ku gali jiray ee lagu isticmaali jiray ee lagu jeclaa sidaas markuu ka baxo ayaa waxa la yiraahdaa fasaad ayuu noqday uu macna expire uu dhacay waxaan jirin marka fasaadku meel walba galaa waxa la rabaa marka inay jiraan dad aqli leh oo markay arkaan fasaadka meelaha uu galaayo yiraahda war meeshaas fasaada ka socday hal iska daayo inaga Soomaali aan nahay oo saas ma naqaano inaga Soomaali waxaan nahay laba bas aan noqonaynaa ama muhaafid boqolkiiba boqol ama mucaarid boqolkiiba boqol markay saan noqoto meesha maxaa ka baxaya waxa ka baxaya ulu baqiyatin yani yanhawna 'anil fasadi fil ard yani dadka aqliga lahaa oo markay arkaan say wax u socdaan cidii dooni fasaadka wadee dhigi karto war fasaadkaas jiray hal joojiyo ساسا إلهي وحوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مركز سهل إذن كهلو دد أتاقن إني وناقن فران حماتذن عليان دد كأني محا كود عن مركز محا لولا إياهي دد يرى هذا ورسدان إنما أنفعيسو سيدان كل بدن على الله يعياعو إنما أنفعيسو وحال ربا إن لا سمايو إنه وضع هذا النوع بلد كان هو إنا قاضاء إنه ما يرى إليسو دقالنا ما يرى farsamadii aan yaani aan ku wada noolaan lahayn aan kaano inay dadku kala duwanaanayaan oo maskaxdooda iyo fikirkooda ay kala duwanaana ilaahay baa inoo sheegay wuxuu leeyahay dadku haduu doono ilaahay wuxuu ka dhigi lahaa hal ummad oo kaliya aayada dambe oo wala yazaluna mukhtalifiina illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum saasu abuuray laamka ku jira waxa leeyahay walidhalika khalaqahum laamkaasi laamu ta'liil ma aha ee waxa leeyahay waa laamul aaqiba لام التعليل لام العاقبة حكوا لدوين لام عاقبة معناها وحوشيجا يا أرنكم ماشى يكون مان دونتو لام التعليل كانوا وحوي هذا يعني سلاس النقطة يساس دراد هذا سال لو يالي هذا كان والله التعليل ما هو لام العاقبة بمعنى هدول تذكر بإلهي إنه هل ودمران إيمان أيوة الصين لها تذكر دون كصومر ودن هدول المؤمنين نقول لها هين حاجة هذه لهم كل تذكرن جنة هذه لهين لأنه أحقال ما بجرب لأن إيمان كان إلهي بابحية ولو شينا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين نار بالله أبوري أو إن لقلال الروا هديدتك كل إيمان لو إذا قليو نار تمحى الله أبوري عيار ما الله أبوري وإن الله لدتك نار تسقلي لها لا أمكن مركا وعاقبه دتكو يكل دوانانا يعني مركا يكل دوانادان دتبا وحيودق ما يعني أسبابتي أي نار تكو قلي لها ين ومدينا بلدات بدن oo kamida naar hadii looga sheekeeyo aakhira la soo xusuusiyaba xiliyada qaar kood waxay isleeyihiin yaa ka naga aamus hada aakhira lama joogay hawla meel loo joogtay yaani waxbuu eriyanaya waxba ka kala daadanaya marka dadka waa in mar walba la xusuusiyo la yiraahdo war adduunyadani waa wax yar ku kasto iswaal wala adduunyadu ma ka badan meeqan lahayni wax yar la u suga ayaga iska tagaay qofka nacdo ummadeena Soomaalida waxa xogaa loo kari leeyahay inay kala saaraan shakhsiga iyo dhulka
hadday shakhsi nacaan dhulkiina way nacaayaan hadda baydhabo ku waxay shakhsi ay nacaan moogtahay oo saas oo kala markaas wuxuu leeyahay magaalada baydhabo ka guuraani oo maxaa uga guuray maxaa magaalada ma iska joogti yani waxaan la kala saari kari laayahay maamul ama qof iyo dhul waxaa la rabaa dhulku waa dhulkaagii magaaladu waa magaaladaadii wadanku waa wadankaagii qof ma nacday tusaale ahaan qofka asaga maalmo u tiri adiga 1 2 3 la u dhaadiga maalmo ka bacdi waxaad arkaysaa qofkii oo iska tagay tijaabo badan waan u haynaayo mid kasta oo maalmaha ka mid ah faraxsanaa oo bilowga ku guulaysta doorasho markii telefishanka lagu qabto bal dib u fiiriya Facebook dib u gala madaxweynayaashii iyo markasta kooxdii guulaysata maalinka dhow natiijada lagu dhawaaqo ayagoo gacmaha taagay oo guulaystay haye markii la guulaysto waxa markay la yiraahdo guusha waxa la baqaa lagu daraa Soomaalidu waxay guusha baqaa lagu daraa hadaad guulaysato waxa la rabaa inaad baqatid baqasho maxaa la yiraahdaa inaad dadkoo dhan inay ka adag yihiin ogolaato maxay la daadan baqanin oo soo taagto waa laga kala daadinayaa waxa la rabaa sida waxa ogaataan mucaaradka iyo qofka maamulka haysta waxa xoog badan mucaaradka qof meel haysuun baa ugu tabardaran maxaa yeelay dadku rabaa dadku u baahan yahay dadkoo dhan wax la wada hayn karo oo la qancin karo ma ah marka soo naxay maalin walba kooxdan ama fakata kan amu xanaaqa ka amu saasiraada kas waqtigan uu ku socdo oo la isu tirinaayo haday cadaawadu sii socoto isnacaybku uu sii socdo la sii socdo qofkii darbiga wuxuu ku tagayaa asagoo maalmihiina ka dhamaadeen dhulkan waxbuuna uu oolin markaas wax kasta intuu isku dayo soo noqon lahaa Soomaalina waxa lagu bartay ruux mar haday arkaan ma soo celinayaan marka bal hadda daanana nimayo kuwan jooga ma soo celinaa kuwa ku dhahay muxaafidaad tahay marka bal u kaadiyo waxaan fiirinaa yaani haday mar arkaan Soomaalidu qof ma soo celinayaan ummadaha kale wadaadeen Mareykanka soo wadankaas dhaqaalaha iyo militariga iyo xoogga lama ah madaxweynayaashooda inta badan 4 sano markuu dhamaysto way ugu celiyaan maxay la afarta hore dhan waxay leeyihiin waa intuu la qabsanaayo oo dhinacada iska fiirfiirinaayo oo jidku xaquu iga jira iyo xageen maraa iyo sa markuu 4 sano dhamaysto oo hadda shaqo qabasho uu diyaar u yahay way ugu darayaan waxay leeyihiin sii wad laakiin 8 sano ka bacdi ma jirto ma loogu daraayo laana qofka 8 sano haduu joogo wuxuu maskaxayay horumar hayay wuu galiyay wadanka haddaan 8 sano ka bacdi ama 10 sano ka bacdi ba hadii shan laga dhigo aan laga qabanin sanadka 11aad wuxuu bilaabayaa dib u cunis intii uu soo dhisay markaas wuxuu ku geynayaa marka dambe soo u wado 10 kale uu ku darsanayaa 22 markay sii marayso 2 xaq ay marayso from 0 la taagan yahay marka intayna halkaas gaarin oo 10 kaasi uu joogay oo dhisid kor uu soo socday halka markay gaarto yaa waxa leeyahay waad mahadsan tahay sanadkaad ku jirtaa waliga ma dhacaysid halka iska joog laakiin iska wareeji inaga aqliyadaas kaligeena ma waa Afrika oo dhan caalamul islaami waxa haysta madaxdooda ummadaha maxaa halaagay yaani waxa halaagay waqtiga dheer ay madaxdu iska joogayaan hadii fursad la siiyo oo loo kaadiyo wax yarna aan looga dhigin waxooga yar ku kala waxbaan gaari lahayn waad ogeed hadda madaxweynankii ka horeeyay 4 sano markay ka dhamaatay asagoo ole warqabyo ninkeeda dhameystiray wax yar ii kaadiya yaa waxa yiraahdo horta maxaad u qabiyeysay adiga u dhameyn weeyday xagee lagu dhameynaa waqti ay ugu yaraaba aniga hadda leeman fahmay oo sheekad meesha laga jira maadii kaadisan maya marka meesha waxa rabaa in la helo ulu baqiyatin dad yaani fiir dadka maslaxada ka shaqeeya dadka wax doonka ma ah ayaga meeshan kursiga iyo waxa la isku eryanaayo ma doonayaan laakiin waxay doonayaan wadankooda oo dhismay inay arkaan marka hadii la helo ummad iyo dadka xumaatada ka celisa ulu baqiyatin dad aqli u saaxiiba oo yanhawna anil fasadi fil ard fiir fil ard yaa la moogtahay shakhsi lama dhihin magac lama sheegin waxa yanhawna anil fasad fasadku soo kama dhici karo ku madaxa ku aan madax ahayn yaani fasadku mar walba uu dhici kara waa bini aadam loo yahay hadaan la helin marka qof yiraahdo war fasadka inaga daaya oo la yiraahdo maya waad saxsan tahay ku sii soco dadkii waa la sil dagaayay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku tilmaamay dad doon isa saarano haday xumaatada iska qaban waayeen way isla dagaayaan marka waxa la rabaa dadku ay kala aragti duwanaanayaan marka aragti kala duwanaado yaani in la isu sabro la isu dul qaato odaya wuxuu yiri wanaamayahu wax ma garan liine waan isla garan la'nahay bal qof walba ra'yigiisa fiiri wuxuu rabaa sida ugu fiican ay la tahay asaga qof doqon oo waxba aan garanaynin ma hadii kale mowqif muuna qaateenba midka kale ka soo horjeeda wax ma garan laa
asna wuxuu isleeyahay un war malaha halkan ay kaga fiicnaan lahayd marka intii saa loo arko war kulligeen isku wada dar wax ma garan liine waan isla garan laanahay waxa la markaa inaan isla garanno haddaan isla garanno waa kaas dadka maskaxdooda waxa la yiri ragga maskaxdoodu waa sida mudaca oo kale mudac waa wax soo taataagan mudaca soo taataagan haddii aan isku dhinac loo wadin wuu isduraaya marka dadka caqliga leh waxay keenaan maskaxdii mudacaasi soo taataagan ee aragtida kala duwana isku dhinac u kaxeeyay oo wadanka horumarkiisa isugu geeyay oo wixii la isku khilaafsan yahay dib isaga dhigtay kaas al rabaa marka halkaas misal gaari kan laabta ma la furi karaayo wadanku inuu inaga wada dhaxeeyo siyaasaddu inay inaga wada dhaxayso dad gaar ah ma jiro ku maanta haduu joogo bari ma joogo laakiin inta la wada jooga waxa la rabaa qof walba inuu horumar ka shaqeeyo halkeed soo gaarsiinaysa meeshii kii kale uu ku joojiyay inuu kii kale ka sii wado meeshan waa qori isu dhiib qof kaligiis wax qaban kara ma jiro waa insaan la soo ogaado juhdiga ilaahay ha barakeeye qofba in buu ku leeyahay mar badan ka sheegay habar cajuuso oo 90 jir oo sakaraad oo sariir saaran yaa say u taahaysa habeen walba aahdo u haysi iyo habeenkii dambe way dhimatay markii maalinkii la soo duga habeenkii ku xigay gurigii tuuga u soo dhacay ilaa duqdii waayeelka ahayd dadkaysi waardiyay ahayd tuugu markuu soo dhawaadaba da markuu maqlo yaa wuxuu leeyahay gurigan waa laga soo jeedaa isku gelin habeenkii ku xigay duqdii ma qaylinayso darbigu loo ka soo booday alaabtii u dashay qof aan wax qabanaynin ma jiro marka lama kala maarmee walaalaa la yahay wadanku inaga dhaxeeyay qofna yaan la fogeynin qofkii oo mesela asaga wax tabanaya waxaad ogaataan qofka wax tabanaya wuxuu u baahan yahay in aad loogu naxariisto qofka wax laga tabanaya waxa la rabaa dulqaad badan inuu yeesho Soomaalidu waxay ku maamada walaalka haday candhuuftaadu gaarto gacantaadu ha gaarto bimaana haday candhuufkaaga fakato arkeen candhuufaa ku tiftid gacanta intaad gaarsiiso oo candhuufti ka tirto wax kale ugu dar oo wanaaga waxa tiraada waan ku xumay raalle ahaw laakiin haddaan candhuuf ku tufto Allah ugu sii darto waa uu isku sii dhamaanaya quraankeena in badan wuxuu ka hadlayaa wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati ahsan culimadeena hore saas lagu Abu Hanifa waxa leena suu caynay yu gurigiisa soo gaaray waa isgarab socdaan aytinu ku wada albaabkii markuu garaaci rabiyo ka istaagay albaabka Abu Hanifa muuna garaacin waa gurigiis wuxuu ni albaabkan rabaa inaan garaaco waana la iga furay hadaan garaace haday cay wax ku dhiman tahay dhamayso ka soo ku sugaayay falfirdul qaadkaas albaabka intaan la furin laan hadaa la furo waa la iga furo oo aan galo waxaad caysa mehelis marka waxoogaa baan ku siinay fursad waan istaagi bal wixii cay oo kugu dhiman igu siidaa marka dhamaysato bas iyo golow inaan gurigeyga iska galo mid kale wuxuu hebel asaas ku lahaa markaas hore marka ii keenayso boosto uu soo isticmaalay miyuu way adiga aan ahayn mid kale wuxuu ku hebel wax ka sheegay markaas wuxuu haduu iga sheegay buugiisu qoranaaye adi buugeyga maxad ka rabtaa asaga wax wuxuu iga sheegay buugiisu ku qortay hadhoona waxa la dhigi doona iqra kitaabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kitaabkaaga akhriso marka ani haduu asaga xumaan buugiisu ku qortay aniga ajiga xasanada ay socda marka waxa rabaa marka in dadka jawi loo sameeyaa horta bal in la Israa'iil geliyo la isu sabro la isu dulqaato inkastoo Soomaalideenu cunfiga ay jecel yihiin Soomaalidu waxay jecel mootay deganaanshaha iyo walaaltinimada nacasnimo u yaqaanaan laakiin nacasnimo ma aha xaqiiqadu waxay tahay waxa nacas ah qofka awood iyo xoog iyo walaalkii uu fogeeyo walaalkii wax yeeleeyo isticmaala kaas nacasa waxaan la yiraahdaa istiqdaamul quwwa xoog in la isticmaalo waa xalul aajiziin waa qof tabar waay fircoon anabi muuse intay wada xaajoodeen يا حجدي اللي قبل فرعون وحبوا وشيء واي أنا ربكم الأعلى بوتاجيه مركي لي عدين ما حد ربكم الأعلى أتكتاي وهو عدينا يا ملا لكن إلهي مركو نبي موسى وكشك أنا رسول رب العالمين قال وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما رب قاس يا رب وعدي مركي الدم وحني وركاس ما قاني أنا فرعون دايا لئن اتخذت إلها غيري لا أجعلنك من المسجونين هداد إلهك لا سميشت وان كحرايا وروح صور ما أو لو جئتك بشيء مبين كورن هديان ورعد كولا ما ميسك حرا مركب وان كحرايا وان كهددايا سنه كيلا وحل العاجزين ما حيل قف إلا حرا أما قف إلا ديلا ويفوضه لكن قف إلا قنعيه ويعذقتها هداد ما أنت قنعي ويد وقت سي بريسو صار نقطة شهوة عبا شيء كيستا بري والسو صار عدونا لكن قف كديلا ديلو قرما بلا قف كداد ديشو مثلا واحد واحد في عن إنه قاطع لكن كله فاهمي واي وركم وحي في عنا ما قاضنا أندلنا تروادش وحي في عناية ودي ما كنا ندعس أصلا فاهمين لو أنت مركز ما ينادوا قف كيس شادربتي مسينا ذو حفام زي شادربت هذا هدف قوي ينادوا فهم سيسو إن لا بديلو حلقوا ما فهموا إيه وحلقوا فهمه إن فرصة يسسيو
la niqaasho la wada hadlo marka ummadeenu deganaanshaas ay u baahan tahay ha lagu baaqo deganaansho xamaasadan oo doorashooyinka gobolada ay socdana horta way iska dhamaanayaan qandha la yiraahdaa qandhada oo doorashooyinku markay waxoogaa dhaafo barastimool la siina qandhadu way jabeen laakiin hal isku simo horta bal qandhada intay jabayso inta ay qandhadu ka jabayso waxoogaa fursad la siiyo dadku ha isla ogaadaan waxa ay ka wada hadlayaan waa wadankoodii horta waxa laba dhaxal isku haysata maxaad isu tiin lama dhaho maxay waxay ka hadlayaan dhaxal way isla dhasheen macnaha hadayna isla dhalanin dhaxal isku mayna qabsadeen haduuna wadanku markay inaga dhaxaynin isku mayna qabsaneen wadanka marka inaan wadanka isku qabsanayno oo kan saanu dhahay kan saanu yiri halkaas ka wada kan saas insaan la yiraahdo waxa keenaysa isla joogitaanka isla lahaanshaha wadanka bas waxa xunun marka uqdada oo dadka muslimka ah laana qof muslim ah uqdada ku jirta waxa way xuntahay saas daraadeed islaamkeenu dareenka dadka iyo wuxuu ilaahay ku abuuray dadka uma diido laakiin uu nidaamiyaa uma diido oo mesela waxyaabo la yiraahdo cawaadifta mesela jacaylka nacaybka carada waxyaabahaas oo kale cawaadif la yiraahdaa waa dareen qofka ku jira ha caroonin yani mal isla xadiis fadu dhaxta la taqdab markii la fasiray waxa la yiraahdaa la taqdab macnaheeda laga ma wado carada la yaqaan ee qofku markii wax lagu sameeyo uu xanaaqayo ha xanaaqin oo xanaaq bah laga waayo macnaheedu ma aha laana qofku wuxuu xukuma ma xanaaqo waa waxa asbaab asaga banaanka uga imaatay ay ka keento adoo meel iska fadhiyo qof intuu biyo qabow soo qaado kitaabado iska akhrisanay adiga macala kitaabkaaga biyo qabow kugu shubo oo kor istaagay saan ku galay muujeeda oo ku dhaw qaal rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam la taqdab ma dheh yani inay cara iimaanayso shaki kuma jiro laana waa mowqifka la jooga mowqif cara laakiin waxa la yiraahdaa carada iyadoo joogta waxa la rabaa wal kaadimiina al ghayda caradii way qariyeen macna wal aadimiina lama dhifiiriya kuwa cara laga waayay ma way caroonayaan laakiin markii la caroodo waxa la rabaa wal kaadimiina al ghayda carada in la qarsado nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu qofkii caradiisa qarsada asagoo heli kara inuu fuliyo maalinta qiyaamaha dadka hortooda ayaa looga yeerayaa markaas xurul ciinta intii uu ka rabo ayaa la door gelinayaa inta doonto ka dooro ayaa la leeyahay marka hal carood qarsato juluq asiisay in xurul ciin kala dooro lagu dhaho ayaa kaaga fiican inaad xanaaqdo oo dadka layso oo dadka ku xad gudubto oo dadka xumaata marka in carada la qarsado dareenka dadka oo muujinayana waa faa'iido oo dadku inay dareenkooda muujistaan waa qayb daawada kamid ah hadii la iscaburiyo oo leeyahay lama hadli karo hadda inaga suurtoobays bariya horta la iscaburin jiray hadda cid la caburin kara ma jirto bariga waxa la soo caburin jiray yani qofka hadalkiisa waa inuu intuu soo baxo meel soo istaago oo uu hadlo oo dadka uu la hadlo dadka wax u sheego markaas waxa la jiray qofkii saas u hadla idaacad laga hadlaayana mesela waxay ahaan jirtay hal idaacad hal television hal journal dadkoo dhan marka BBC arkaysan dadka waaweyn way yaqaanaan maalinta arbacada ah waxa la jiray toddobaadkii Afrika BBC maxay sheegtay waxa la sugu jiray toddobaad arbacadanka arbacadeeda wax kale war ma maqlis waa la soo dhaafay marxaladaas bal Facebook la yiraahdaa meesha la soo dhigay oo maxaa adduunka wixii ka dhaco dhan hadda waxa kale fursad la haystaa dadka wanaagsan waxay fursad haystaan bariga hore dadka inaad wax u sheegto waxay u baahanaan jirto in loo tago in madax loo tagana jagpoint badan ka sokeeyo looma tagi karo laakiin Facebook jagpoint buu leeyahay Facebook jagpoint ma la saga waxa la marka Facebook iyo waxa lagu hadlaayo wax ummadda dhisaaya war sidaana ma aha sidaana way tahay ummadeena hore aanu wadna inta hadaa ku qorto madaxweynaha ra'iisul wasaaraha mucaaradka qof kasta gurigiisa ugu tagay marka ma heli karnaa inaga inaan wax wanaagsan dadka u qorno oo dhahno wadankeenu wuxuu u baahan yahay dad aqli u saaxiib ah markay arkaan dadka oo isku fidnoobaya intay la hadlaan yiraahdo war sidaan inama bixinaysa sidaan aan yeelno qofkii si ra'yigiisa u qaatana asagu sidaas ay la tahay inay u fiican tahay qofkaas waxa laga rabaa hadii mas'uuliyad u haayo inuu yiraahdo walaalayaalow hadii khaladaadkaas ay dhaceen wanaag ayaan ka wadnay meel kale oo ka marnana waan ka sii weynay sidaan inay dantu ku jirtaan u qaadanay way inay sidaas laga fiican yahay way dhici kartaa laakiin dantu inay sidaas tahay ayay naga ahayd wixii ka imaaday oo saasatana waan ka wada hadlay yani laakiin hadii la isku sii shido oo kooxba la sii fogeeyo ruux horta la tirtiri kara ma jirto oday ugaas waa in sheeg hadda koora waxa la soo la duubi rabo ama yani malaaq laga dhigi karo laga rabo ama isam laga dhigi karo yaa hal nin oo kaliya wuxuu arkay geed kaliya hoos fadhiya markaas muxuu yiri ninkaas kaliya meesha fadhiya markaas waxa ninkaas kaliya meesha fadhiya ugaasnimadka uu diidan yahay laakiin beesha dhan ku ogol oo nin kaliya meel fariis wax ka qaadi maaye
على مسارك إنه وضع نكليس محنا قاضي باش أنا بجوكته وحوني ما يودجيست dadka waxa ay rabaan horta wax la wada fulin kara ma ah maanta waan kula jirnaa waa ileedin waa calaamad saar laakiin bari marka saartaan iga weydaan ninkaas ma u tagi doontaan ogaada marka intaad ninka u tagi lahaydeen hadda ninka inuu halkan imaada dhaanta marka saas daraadii aan leema duubaaye intuu ninkaas banaanka taagan yahay bal ninkaas ha loo tago oo ha la soo qanciyo waan u suweynaa calaamad saarka inaga ma fakanayo hadda calaamad saarana markuu aan la soo heshiinay ninkii loo tagay waxa leeyahay warniyo inaad saan muhiim u tahay oo ugaasku saan ku aqoonsan yahay ma baan u maleynaynin ugaaskii marka hawsha la qabtay yiraahdo hebel aan maqanaysa hawl loo qabana aan buu soo istaagay warni ugaaska maxaad ku akhris ugaaska hawsha dhan wuu joojiyay aduu ku waxa yiran yahay ee reetolka way ku tuugayaan hawshii ma loo wadaaya mise inta hal mar ku soo wada fiiriyaan ayaad meeshaada ku dhimano tolka dhinac ayaad ka noqonaysaa markaas intuu kala batay oo farxay ugaasku saas moo dhahay hatta inuu dhihin dhici karta beentuna way banaantay ogaada hadda markay dadka la maslaxaynayo dadka markay la maslaxaynayo beentu way banaantahay inaad tiraahdo warni aad unba isxanaajinay maahane madaxweynuhu suu ku jecel yahay mogtaadii wax ka jirana male kan kale la yiraahdo warni ninkaas mucaaradka aad ku hayso xooga ku jira mogtahay adiga meel uu ku faaruqiyo buu leeyahay waa nin ragad ana aqaan wuxuu leeyahay daan fursad helaan wadankayga uu khidmeeyo bal meesha aan wax gaarsiiyo hal arko marka mal istijaabin karaayo yani nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu beenaaluhu ma aha alladhi yuslihu bayna an-nas dadka kan maslaxaynay beenaala ma ninkii aad markii loo tagay ugaaskii liisaasoo kula intuu imaaday ayuu ugaasku imaaday wuxuu ugaasoo waad mahadsan tahay hadda wixii ka dambeeyana wixii aan qabay waan iska liqay waxba kuma haysto tolka ayaan kamid ah bas beesha saas isku raacday aqligaas oo kala raba Abu Bakr Siddiq Soomaha saaxibu rasuulillah saaxibu fil ghar oo asxaabta ugu fadli badan markii oo lagu doortay Saqifatu Bani Saacida oo hadan la soo raacay oo misaadka la imaaday wuxuu waayay Ali iyo Zubair oo misaadka joogin maalintii natiijada lagu dhawaaqay wuu yaqaana dadkaane nafsiyaadkooda in la akhriyaal rabaaye wuxuu yiri Ali iyo Zubair aawe ma joogan wuxuu yiri beecali lama galaayo Ali iyo Zubair oo la arkin waa inta loo diro Ali iyo Zubair al raadi waa loo tagay waxa la Ali iyo Zubair Abu Bakr Siddiq idin yeeraaya oo imaada way imaadeen Abu Bakr uu la hadlay wisi wuxuu dhaceen buu sheegay bas saacada wuxuu yiraahdeen maqnaanshaha meesha aan ka maqnayn ugama aanan maqnayn Abu Bakr inaan diidanahay inuu yahay qofka ugu mudan muslimiinta inuu khaliifada rasuulilaahi noqdo ma diidanin laakiin wada tashigii lagu qabtay Saqifatu Bani Saacida ayaana laga tagay fiir wa'alna Abi Talib iyo Zubair ibn Awam 10 mubashirin bil janna ay ku jiraan hadana Saqifatu Bani Saacida yaa ku shiray ansaara ku shirays waxa maqlay shirkaasi oo nabiga yaa bedelay laga tashanayo waxa maqlay Abu Bakr iyo Umar iyo Abu Ubayda waa saddex muhaajiriintu inta kale waa ansaar markay tageen wixii ka dhacay waad akhrisateen oo yaani hadalka la isku celceliyo ugu dambeysay alxamdulillah Abu Bakr la isku raacay Ali iyo Zubair waxay rabeen saddexdan markay baxayaan Abu Ubayda iyo ay baxayaan inay sii maraan wadaan Ali iyo Zubair aan sii wadno oo ayagoo shan maxay idin la tahay fiir nafsiyaadka dadku asaas marka dadkii saas ah ee saalixiinta ayaa isqancinayay inagoo Soomaali oo 30 sano iyo ka badan isleeynay miyaanan isqancinaynin oo dadka nafsiyaadkooda in la ilaaliyo fiir dadku ka wuxuu soo qoray Facebooka war dadku way wada xanaaqsan yihiin ayaa isku diray wadadku way isku xanaaqsan yihiin cid wax iska halaysana ma jirto yaa isku diray dadkan shaydaan iyo balaaya isku diraysa marka fursad yaan la siinay shaydaanka dadkeena muslimka ee Soomaaliya wadankeenu wuxuu ku qiimo leeyahay inaynu wada jirno waxyaabaha dhacaayana ilaahay subhanahu wa ta'ala in la baryo ilaahay tawfiiq inuu waafajiyo wadanka loo duceeyo balta inaan la iloobin barta ducada la iloobo mogtay wataan khudbada ku bilaanayni culimadeena hore waxay dhigi jireen markii dhibaatooyin dareemaan bal dadka hal la fariisiyo oo quraan hal la akhriyo ilaahay hal la baryo xagaas la dhigi jiray hadda quraan hal la akhriyo ilaahay hal la baryaba waa la iska iloobay aayadan ku soo gabageenay sanadka markuu dhamaanaya wala takunu kalladina nasullaha kuwa ilaahay iloobay oo kala noqonina kuwa ilaahay iloobay maxaa lagu ciqaabaa ilaahay wala takunu kalladina nasullaha فأنساهم أنفسهم نفتوضا مصلحة دانتودي أمبو إلهي إلوسيي أيغو إسلا دانتي نجارة ما بجارة محايل محاكم مقن حصوصتي إلهي ماشي إلهي رالي أنشل رادي الله محا إنو دان إلهي سور رالي كيهي حقا ماشي لهذه لها يا حوق يا وحز دوامرين يا مكر يا هبلو هذا يسان نقطنا قفكي أود يا حوق يا استعماله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله نبي محمد صلى الله عليه وسلم مسؤولية ده قفكي دادكو أيودي يبتان رالينا يوغان نقضان إلهي بقى كالمينايا قفكي لكن أصور راسدة أو أصور ساس كو قاتنا
وكلت إليه أسأل الله تعالى صارنا وحلله أذيك يا ماشي أتكب حسه بلان أرجنه مرك إلهي ساينا مده إلهي قرب كأنه هجله سيد إلهي قرب كأنه كوجل لها ودين تسان كل حاجة لين عن كوا تشنو سنة كان سيد ما ناينا محاسبة أندي بسوق الله بنو محا ينوقف صومي أو ينوفي عن محا ينجح الله بي أندي بصحنا سنة كسوس عذنا محا مستقبل ومدنا يدين تنا ودنا إن هالكاس استراتيجية سمينه أي لو باين إلهي توفيق هنا وافجيو ومدنا الله يشيسيو حماة الله ينقد حساره نعيبك الله ينقد ساره إسجعل الله ينوسو دجيو dhibaatada Allah inaga qaado inta yaani khilaafaadka iyo buuqa iyo saameyn ay ku yeelato ka dhaxaysa ilaahi tawfiiqda iyo meesha maslaxada ay ku jirto dhamaantood Allah waafajiyo sallallahu alayhi wa sallam Muhammad